runaantii shirkaas anigu waxaan u arkaa shir markiisii horeba sharci darro ahaa shir aan u qubinayn danaha shacabka Soomaaliyeed uu ka doonayo dawladnimada dhibka ku soo jiray muddada 30 sano in inta meel la isugu tago shan maamul goboleed ay yiraahdaan dawladda federaalka ahayd baa xiriirka u jarnayna waxay taas ku tusaysaa heerka ay dawladnimada ka joogaan nimankaas waxaana loo baahan yahay arrintaas dadka indheer garadka shacabku inuu kacdoon sameeyo dawladnimadii baa isbaaro loo dhiganayaa anoo ka faa'iideysanaya fursadan qaaliga maanta shirka maanta halkaas ay nimankaasi go'aamada ka soo saareen ama ay ku dhaqaaqeen waa godkii madooba oo Soomaaliya ay ku jidhay 27 sano dib in loogu celiyo maantana waxaa muuqda iftiin qurux badan oo dawladda Soomaaliyeed ama rajo laga qabo in dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan garab istaagaan ama taageerada u muujiyaan nin walbana wuu og yahay ayaguna waxay rabaan sidii 27 sano inay dib inoo ku celiyaan oo fikirkii ay hore u qabeen inoo la yimaadaan oo canshuurta waxay ku sheegi jireen oo dadka shacabka lagu dhibaateynayay oo cidna aan wax loogu qabanin la ka qaado oo dayacii iyo burburkii Soomaaliya ay ku jidhay dib inoo ku hayaan waxaana soo dirsaday baan anigu aaminsanahay dad aan Soomaaliya jiritaankeeda ogolayn doonayna inay meeshii madoobeed Soomaaliya ka muuqato haddiinu marka maanta doonayno dad Soomaaliyeed oo muwaadiniin oo maskaxdooda shaqaynaysa inuu nahay oo inuu ka fakarayno aayaheena iyo jiilkeena soo socda meeshii ku jahan lahaayeen waxaan anigu aaminsanahay in laga hortago xaasidkaas aan lana ogolaan waxyaalaha shirarka oo halka lagu qabanayo waxa ay ku hanjabayaan ama dawladda federaalka ugu hanjabayaan ku goodamayaan waa dadkeena shacabka Cabdiweli inagu ina ka tagay xaaf qolow ka yimi oo Soomaaliyeed dhammaan dad Soomaaliyeed bay ku wada hanjabayaan ku go'aaftamayaan dadka Soomaaliyeedna ha ogaadeen in awood ay u iska leeyihiin cid ay doonaan diri karaan cid ay doonaan u yeeran karaan marka waxaan doonaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed gobol kasta ku noolaadeen in cadawnimada dhaxolayn qabiilkana ayagu ay galiyeen wax dagaalamaya aysan jirin dadka Soomaaliyeedna gobolka tagtid baa ay ku soo dhaweynayaan oo yaa taa aan cid ku oranayn laakiin waxa kala tilmaamo oo kala sheegaa in ayaga yihiin maantana ay u baahannahay in aan iska garabsano oo ka hortagno waxa ay wadaaneen innaga awood wadanka u ah innaga dawladnimada ah innaga shacabka wadanka ah adduunka xabad roodhiya hal sentiyo lagu daraa adduunka oo dhan dawladdan gilgilata madaxdeedu marka dambe caradha in laga dhimo maaha aan madaxdaas wadanka iska caranaysa innagana wadankeeniba god madow ku jiro lagu gurayaa aynan ka hadli karin dhimirka marka miyaynu la'ana dad wax garanaya miyaynan ahayn dad maskaxdooda shaqaynaysa miyaynan ahayn innaga dhalinyaro wadanka u ah maanta Cabdiweli Ali Gaas iyo madaxdii ka horeysay ama maamul goboleedka ka taa meel kasta ka tabaadeen wadanka halkii bil waxay soo galiyaan inta oo rasaas iyo intaas oo huba innagana leeno dhiiba qalin iyo buug bay wataaneen qaabka inoo maamulayaan ama nafteena ka jarayaan godka madow inuu ku waan maxay tahay hal subax hadii inuu dhinaano jooji waxa wadid subaxdii ay boorka ka duul wallahi inuu sii joogi karin gobol kasta mid kasta ka yimaado waxa ku dhaaranayaan federaalka ugu hanjabayaan waa innaga inuu inagu taageero muujino federaalka taageero u muujino oo god madow baan ka soo baxnay idinka alle ku celin dhiraahno oo nin walba gobolku ka yimi la yiraahdo hadaa ku soo noqotay wuxuu ku soo gaaray mas'uul Allah ka ah meesha ka timiye meesha ku dhaaranaysa aad waxaan aaminsanahay inaynu dawlad Soomaaliyeed awood leh oo caalamka ka gorgortami karna inuu yeelanayno maantana waynu aragnaado geeska Afrikaba madaxweynihii Soomaaliya hogaamiyaba kaba ah igad buu heshiisiinaya afarta beerjuu maraya waad ogtihiin Afrika madaxdeedii 55 dawladood weeyay Afrika waxa isugu tala gashay China hadii aan ku roon yahay kaligiisa gaar loo qaabila war maxaa samacada ay noo diiday inuu maanta yeelano maxay noo diiday inuu naraano madaxweyne isaga noo maxay noo diiday inuu diidno wax maamul goboleedyadu wadaan maxay noo diiday nimanka madaxda ay ku kan sheegaya inaan annaga ayaan ugu dhaarano annagana metelin codkiina aan dib uga noqonnay dadka Soomaaliyeed fursad aan ka faa'iideysanaya meel kasta ay joogaan waa dad walaala waxaan ugu baaqayaa inay midoobaan gacmaha isqabsadaan kana hortagaan waxyaalaha noocaas oo dhibaatada iyo godka madow ku haynaya shirka markiis hore ay Kismaayo u aadeen madaxweynayaasha goboleedku ay u aadeen inay markooda hore ku khaldanaayeen kow markii aadiyeen bayna ku khaldanaayeen Kismaayo waayo dawladda waxa ka jiray meesha ninkan Cabdiweli Ali Gaas Buntland maamul goboleed Axmed Madowna Jubaland buu ahaa Shariif iyo kuwa kale Axmed Xaafi iyo kulli midba meel buu ahaa markooda hore ay ku khaldanaayeen shirka Kismaayo aadeen maamul goboleed markuu Cabdiweli Ali Gaas ka tagay haduu u baahan yahay cid farmaajo iyo khayr u tagay ayagu kala hadlaya wixii nidaam iyo dawladdiisa iyo wixii uga baahan yahay inay shiraan dastuurka inay shiraan haduu dastuurka ogay wixii saxan oo dalka lagu hogaamin karo inay ku shiraan oo isugu yimaadaan bi ku haboonay laakiin inay dhaxaan maamul goboleedkii waxaan intaan inta wada tashanay shaqada maamul goboleed waxaan ku tashanay inaanu dalka dawladda Soomaaliya gubno oo dib ugu celino 30 sano la soo dhaafay wax suurtagalana ma ahan ka hor magacay waxa la yiraahdaa Samiira Maxamed aad baan ugu xumahay go'aamadii la soo saaray inkastoo aan kulligood aan wada dhageysan laakiin waxa ugu muhiimsan waxay ahayd
inay yiraahdeen waxaan u jarnay xiriirka soo maaha waan ka xunnahay xiriirka uma jari karno haddaanu nahay dawladda Puntland haddaanu nahay shacbigeedu laba shacab oo walaalo ayaanu nahay dana ayaa naga dhaxeeya diin ayaa naga dhaxaysa walaaltinimo ayaa naga dhaxaysa ciidanka inaanu wada dhisano ayaa naga dhaxeeya waddankaygu qabya ayuu ku jiraa qabyada sidii looga wada saari lahaa falankeeda inaan galno weeye Afrika way soconaysaa waa inaanu la soconaa anagoo mid ma aha inaanu iskala qoqobno federaalku ma aha inuu inoo horseedo waxa la yiraahdo kala qoqobnaan iyo kala qaybsanaan aad ayaan uga xumahay waxa la yiraahdo taas waxay uga muuqataa arrin qaldan bay ila muuqataa dawladda Soomaaliya hadda la ururinayo oo yaani maartay burburto ku dhacay hadda meel bal isaga keenayo la ururinayo nimanka maanta yiri federaalka dawladda federaalka ahayd waa bajido waa ka goosanay ma taageersanin dawladda federaalka waa maartay wixii dhibaato waa la xalinayaa Soomaali waxaan ku weynay xoogaa go'aan uga helmayno Soomaali ma rabnaa isku mid ah wixii hadda federaalka wax laga sheegay waa in wada hadal lagu dhameeyaa annagu saasaan taageersanahay mana ayidsanin in maartay nimankaas go'aankii gaareen lama qabno gaar bay iyaga ku tahay waxaanu taageersanahay anagu Xasan al-Khayri iyo Farmaajo madaxweynaha federaalka Soomaaliya ayagoo aan leenahay anagu haddaan shacabka reer Puntland waliba dhalinyarta haatan waqtigan taagan rajo badan baan yeelanay markaanu Xasan al-Khayri Farmaajo noo yimaadeen shirkan ay hadda maamul goboleed isku taageen waxaan u arkaa sharci darro in dalka Soomaaliya waliba waxa ka oran karaa shirkan waxa lu ku leh dalal shisheeye oo aan doonayn in Soomaaliya dawladda yeelato haatan oo ayagu ay u hadhay mid bilo wax ayaamo kooban inay yiraahdaan shir ban qabsanaa dawladda federaalka ka soo horjeedno waxaan u arkaa inay tahay waxaan aqliga gali karin ba oo ay madaxdu ma taqaanaa ay u haystaan in dalka xil loogu sii korin haday dawladda federaalka u gooyaan sabab aragtaan madaxweynaha inuu yiraahdo sirkaas baanka madaxweynuhu kaligiis ku yahay Puntland lama qabto iyo annagu madaxweynaha ku xigeenka Cabdixakiin Xaaji Cumar Camay aad iyo aad baan taageeranaa wuu ku saxsan yahay haddaan anagu reer Puntland nahayna anagu cadawada go'aan ku qaatay waa ka soo horjeednaa oo kuma taageersanin anagoo la yaab haddaan shacab reer Puntland isaga iyo Musabbixi tiito ka raqaday haddana waxay nagu daranay yiraahdaan maamul federaalkan ka goosanayna aan waxaan u arkaa haddaan nahay shacabka reer Puntland aan ka mid ahay inay tahay sharci darro haddii madaxweynuhu leenahay dalku hal madaxweynuhu leeyahay ma laha 8 madaxweyne 9 madaxweyne toona saadarteed dalku halka madaxweynuhu leeyahay waa wada ogsoonaydeen oo waa ku wada qanacsanaydeen horena waa u qirsanaydeen iminka waxa anagu isbedelay garamayno saadarteed dawladda inaanu dhiiri gelisaan oo aad taageertaan oo wax weeye tabar iyo tusaale iyo talaba ku taageertaan baanu idinka rabnaa inaad wax weeye dawladda xaga daacisaan oo wax liita iyo shirda xaga dambe lagu qabsado iyo wax weeye waxyaalo kale ka shaqeysaan anagu ma baahan ruuxantii shan madaxweynaha meesha maalintii nooga muuqanayay iyo wax weeye madaxweynihii lixaad oo Michael Keaton xiluu ka sii dhacayo ruuxantii waxaan oran karaa arrinta iyada maha arrin haboon ma aha madaxweynaha nin ajnabi oo ka xigo ma aha dalkiina ka shaqeysada dantiina oo dadka wax weeye ka shaqeynayna burburkiisa xilliga madaxda haystaan maalinta qiyaamada kala xisaabtamaya dadka aan la hor istaagtaan wixii burburiseen